بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha muslimiinta ah iyo walaalaha ku xiran janalka Simatar TV. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa walaalkiin duruusteeni taxanaha noo soo socday. waxaan ka soo hadalnay weysada iyo tayamumka, iyo waxaa kaloo kasoo hadalnay qofeenka sida loo masaxayo iyo arkaantiisii iyo shuruudihiisii ayaan soo baranay. kadaalika salaadana waan soo baranay waxay tahay. maanta marka waxaan baranaynaa intaan salaad la gelin ka hor maxaa laga rabaa. salaad intaadan gelin ka hor waxyaabaha laga rabo maxaa ka mid ah. waxyaabaha laga rabo horta waxaa la yiraahdaa shuruud ayaa la yiraahdaa. shuruudan waxaa la yiraahdaa shayga markaa rabtid inaad sameysid waxyaabaha ka horeeyo ayaa waxaa la yiraahdaa shuruud. mithaal hadartaan waxaa rabtaa jaamacadda inaad tagtid. jaamacadda waxaa ka horeysa marka hore shahaado dugsi sare inaad haysid, waa shardi oo u degsan jaamacadda. bangiga rabtaa lacag inaad ka doonatid, bangigaas lacag diina rabtaa. lacagtaas diin intaadan lagu siinin ka hor waxaa taagan shuruudooyin markaas u baahan in la buuxiyo. shuruudooyin waxaas marka waxaa la yiraahdaa shuruudooyin. marka salaad intaadan galin waxaa laga rabo shardi ama shuruud ah oo ku ansixiyso salaada. waxaa ka mid ah kow dukhuulul waqti salaad waqtigeeda inuu galo. mithalan duhur aad rabtaa inaad dukatid 5 saac waxaa rabaa salaad duhuraan dukanaa marka ansixiyso. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ku cadeeyay inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. salaad waxay u sugnaatay mu'miniinta xaggoodii ama dushoodii waqti markaas oo qoran. kadaalika waxaa kaloo ka mid ah istiqbaalul qibla, qiblada inaad u jeesatid. waxaa kaloo ka mid ah satrul awradaada inaad asturtid. ilaahay baa wuxuu yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin, yacni quruxdiina qaata markaad aadaysiin masjidka ama masaajidada. awradana ragga waa naqaana maa bayna sura wa rukba waaye, jilbaha iyo xudunta ilaa inta u dhexeyso ayuu awra ka yahay. naagtana iyadana haweeneydana iyadana waa jamiicul badan waaye. waxaa laga soo reebaa alwajhi walkafayn, wejiga iyo kafeynka labada gacmo ayaa laga soo reebaa. bacdul ulama hataa way ku daraan way ku daraan. hadda maanta iska dhaafee wejiga kafeynka iska dhaafee jismiga inta kale la feedaabo. ilaahay anoo naxariisto. rasuulkan sallallahu alayhi wasallam arintaas waa ka hadlayo. wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam kaasiyatun fi dunya caariyatun fi aakhirah. buu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam gabdho oo ku asturan adduunyada oo maalinta qiyaamana ay ku qawiin kuwaas waxaa ka mid ah kuwa had isku malahan inay dhar fiican u xireen dhar fiican aan u xirneen. kuwaas ayaa ka mid ah. marka haddaa ima khaliisid walaasheedii dhar wanaagsan xiro. waxaa kaloo ka mid ah shuruuda dahaaratu min alxadath alakbar wal asghar, inaad daahirka ahaato xadadka akbarka iyo midka asgharka ah. xadadka weyn iyo xadadka yar inaad markaas daahirka ahaato. midka yarna waxaa loola jeedaa midka qaa'idka ah, kaadida iyo saxarada ayaa waxaa la yiraahdaa xadathul asghar. xadathul akbarkana waa midka oo janaabada loogu qabeysanayo. haddaad adoo jiifto riyootay oo wax kaa yimaadaan iyo markaad oo camdan u sameyso ayaa waxaa la yiraahdaa xadathul akbar. waxaa kaloo ka mid ah inaad jirkaaga daahirka ahaato iyo dharkaagi iyo makaankaad ku dukanaysid inaad daahirka ahaataa. ilaahba subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wathiyaabaka fadahir, dharkaaga daahiri. nabi maxamed lagu yiri yaa ayuha almudaththir qum fa anzir
وربك فكبر وثيابك فطهر. marka walaalayaal ma badno waa 5. marka hore waa salaad waqtigeeda inay gasho. mar labaad istiqbaalul qiblada inaad u jeesato, awradaada inaad asturto, inaad daahirka ahaato xadadka midka yar iyo midka weyn. waa inaad jirkaagana daahir u ahaadaa, iyo dharkaagi iyo makaanka aad gudkunaysid. waa 5taas aan ku celiyo waqtiga inoo galo. qiblada inaad u jeesid 2, awradaada inaad asturto 3, inaad xadadka midka yar iyo midka weyn daahirka ahaataa 4, midka 5aad badankaaga jismigaagi iyo dhar kugu jiro iyo makaanka ku dukanaysid waa inay daahir ahaadaan. 5taas waa ma badno. walaalaha sii gaarsii si markaas ayagana ugu faa'iideystaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajar ku siiyo. ajarka Ilaahay ku siinayna intoo la egyahay waa wuxuu la egyahay walaalkaad khayrka u gudbisay oo ku dhaqmay intoo asiga loo qaraayo ajar lamid ah ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku siinayo. halka ajarna rasuulka noo sheegay sallallahu alayhi wasallam ma bayna as-samaa wal ard ayuu u dhaxeeyaa. haddii halka ajar lagu sii hataa gurigaaga aad geystid oo geesi lagu yiraahdo hataa ma geysan kartid. marka insha Allah rasuulka wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam addalu al khayr ka fa'ilih. marka khayr aan faafino subscribe aan saaran insha Allah sharkan ku xigo soo gaaro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.